السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسول الله أصحابتا ماشي داون سنة وأدون ميديا هذا جنرال كوكو حسبتها سبسكرايب صار لايك تنصار فيديو مال دير كرسي وياي عوضة وحاواي ورنيو ديجا بقولي تاجن لما انت دلنيرتا Soomaaliyeed ee kasoo horjeeda ficilka iyo ashaxumada ay Itoobiyaanku ku wadaan wadanka Soomaaliya alla inta kasoo horjeeda waxa leeyahay fiidiyoogina waaya cawada maanta wax kale ma wafalaqeynana meeg toos u qaadanaya cawada nimanka Itoobiyaanka waxa weeye nimankaas waxay sameeyeen iyo waxay sameeyaan qof kastaan waa u jeedaa wax indhaha laga qarsan karo maarta laga laaban karana maaha nimankan awal hore waxa ogeedeen inay warqado iyo wax soo dirdiri jireen soo hanjabi jireen awal hore afka ahayd awal hore afka la iska turturay laakiin markan waxay sameeyeen ficil bay sameeyeen horta sida ogtihiin maanta waxay sameeyeen gobolka Gede ee ka tirsan Soomaaliya inta aan aqoonin waxa waa gobol dhinaca koonfurta ku yaala ee Jubbada Hoose ayuu xuduud la leeyahay dhanka kalena wuxuu xuduud la leeyahay dhankaas Itoobiya gobolkaas waa gobol aad u weyn waa gobolada ugu weyn Soomaaliya ku jira awal hore Itoobiyaanku waxay gacanta ku hayeen maamul goboleedka koonfur galbeed ayuu ku jooga shaatiga ATMIS iyo ciidamada amaanka iyo xasilinta u jooga wadanka Soomaaliya ee ka tirsan Kenya iyo Uganda iyo ATMIS la yiraahdo kolba soo taqaanaan shaatigaas ku joogeen saas waxay ku maamulayeen koonfur galbeed laakiin ciidamada Itoobiyaan oo ciidamada federaalka Itoobiya ka tirsan oo si toos ah ugu soo talaabay amaanta waxay qabsadeen aeroboorada ku yaalay dhammaan awal hore gobolka way haysteen laakiin aeroboorada iyo wixii dhammaan iyo inta u dambeysay inta si gacanta ku hayn ma intii kale way si dhameystireen waxay si buuxda u wareegeen gobolka Gedo hadda gobolka Gedo waa gobol ka tirsan Itoobiya sida caadiga ah badee ilaa ninka gacanta meesha ku haya way u tirsan tahay waxay saa u sameeyaan waxay tahay waa darro iyo maaragtay marba mar ka dambeeysa iyo ficil kasta oo Allah wax kasta ay sameeyaan karaan ay ku dayaan dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya damiirkaaga la tijaabinaya macnaha fahamsa marka anigu dhammaan dhalinyarada Soomaaliya waxa dhiilaa warniyo wadankiina siyaasiyiinta ku aamina madaxweynaha ku aamina Ilaahay abuurtay ku aaminsan malaha horta waxa bad ka bilowdaanba nimankan la dhahayo Itoobiyaanka wadanka siyaabaha kala duwan ee u jooga qaar waxa arkaysaa masaajidada ka tugsanay qaar meelahaas xamaalana dhahayo waa shaqaysanana wax Ilaahay abuurtay oo ka jira ma jiraan waa dhamaantood waa sirdoon ونمن مشين وطا مركا waxaan dhihi lahaa Itoobiyaanka kooda askariga iyo kooda shacabka isku ilku fiiriyo ilgooniya lagu fiiriyo taasana dhihi lahaa sababta Itoobiyaanka hadda maanta inay goboladaas ay saas ugu faafiyaan hadda koonfur galbeed haysteen gaday hadda maanta qabsadeen bari galmudug tartiib waa loo socdaa fahamsaa ilaa Muqdisho laga gaaray waxa saas oo dhan waxa u suurtagelinaya nimankaas inay awooddaas siinayo waxay tahay waa nimankan wadankooda ay ku beereen oo ay soo geliyeen kuwa badan oo Soomaaliya oo dhiig Soomaaliyeed oo maqaar Soomaaliyeed leh وهذا أوصي شقينا وجاجو سنوا ودنا وطن وكنت جاجوس بدنيا وكسي أود بدنيا ما فهمتين مركا Itoobiyaanka waxa waa ilgooniya la iskaga fiiriyo ilgooniya ma ahan wali faraha loola tago gacan toos ah loola tago wax inta ka badan oo dhawr karma wardhiga boqol taaganiyo caawadaniyo ma fahanteen marka Itoobiyaanku waxay sameeyeen dhammaan dhulka Gedo waa qabsadeen galmudug xataa laftigeeda ku sii siqahayaan koonfur galbeed hore haysteen muuse bixin heshiis hore la soo galeen bad baa sheegteen meel yar oo bad yar waxay ka helisiin wadanka dhan la wareega because dagaalka toos u bilaamay Soomaali ilaa ficil laga maayo anigu ilaa hadda waxa waay wax ficila aan u jeedo malahan madaxweynaha Xasan Sheekh oo meelaha masaajidka soo buuqbuuqay arkay laakiin wax ilaa abuurtay oo ficil la arkay bala war ciidamada Soomaaliya nabad sugidda toos waxa loo dhahay meeshaan iskaga dareera dhammaan gobolkeeda waa iskaga soo dareera maxaa la yiri meeshaan iskaga baxnay Itoobiya oo talisa sida caadiga ah marka qorniyo ina maalmo meesha ka soo buuqno oo war iyo buuq la soo taagnano waxa ka fiican wadno nimankan toos iskaga dhicno wixii buuq iyo wixii warana meel aan iskaga dhigno Soomaaliinta waxay ku qabyaalad iyo dhexdooda iyo waxa iskaga buuqbuuqaano intaas eegaas haysta wax laga faa'iideysanayo oo dhiig iyo shidaal u ah ayagana waaba intaasba warniyo inka soo kala jeesta nimankan cadawga ilgooniya la iskaga fiiriyeen leeyahay YouTube kana waxa waay dadku cusub channel kana meel fiican la gaarsiyo dhammaan dhalinyarta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed aaminsan waxa waay video meel dheer la gaarsiyo warsekan baniyo Itoobiya waxa waay warkeeda iyo akhbaar waxa la wixii ka soo cusbaan oo soo dhigaya meeshan ilgooniya channel kana lagu hayo meel fiican hal gaarsiyo ahi